Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa kulan la qaatay madaxa hay'adda socdaalka adduunka IOM ee Soomaaliya. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa hoygiisa kulan kula qaatay madaxa Bariga Afrika ee hay'adda socdaalka adduunka ee IOM Maxamed Abdikaar oo uu weheliyo madaxa howlgalka Soomaaliya ee hay'adda France. Marka hore, madaxa hay'adda socdaalka adduunka ee Bariga Afrika Maxamed Abdikaar ayuu Gudoomiye Sheekh Aadan warbixin ka siiyay waxyaabihii ay dalka ka qabatay, isagoo soo hadal qaaday sida Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay u wada shaqeyn karaan, isla markaana ka taageeri doonaan sharciga socdaalka iyo jinsiyadda dalka. Dhanka kale, Mudane France ayaa isna dhankiisa sheegay in ay hadda hay'adda socdaalka ay gacanta ku hayso kumanaan barakacayaal Soomaali ah. Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa bogaadiyay shaqooyinka ay hay'adda ka wado dalka iyo dadaallada hay'adda ay wax uga qabanayso barakacayaasha dalka ku nool.